xaaladaha soo kordhay wasiiradda ayaa ka warbixisay. Waxaan jeclaan lahaa inaan warbixin yar ka dhiibo isbitaalka 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa ku geeriyooday 9 qof. dad badan waxay gelisay panic. waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada la wadaago sida ay kala ahaayeen dadka ku geeriyooday isbitaalka. isbitaalka waxaa ku geeriyooday bukaan jiif inoo ahaa 5 qofood oo dad ka mid ah xaalad daran ku jireen oo inoo jiifeen ICU. 4 qofna waxa ay ku geeriyoodeen marka la keenay triage-ka emergency-ga oo loo rabay in loo fidiyo xaaladaha degdega ah. dadkaas ma wada qabin COVID-19. qof ka mid ah kaliya ayaa positive ah dadka bukaanka inoo jiifay. qof ka mid ahna waxaan xaqiiqsanay inuu negative ahay. 7 ka mid ahna waxay sugayaan natiijada baarista oo maanta ay geli doonaan. isbitaalka guud ahaan waxaa hadda jiifta 28 bukaan ah oo lagu dabiibayo lagu daryeelayo. waxaana 24 saac uu qaabilaa bukaanada gobolka Banaadir. intaas waa wixii dhacay xalay oo nambarkii ugu badnaa ee soo kordhay ah. waxaan jeclaan lahaa inaan 2 qadiyad oo caafimaadka ku saabsan dadka la wadaago. waxaan maalinta ka dambaysa ogaanaynaa oo xaqiiqsanaynaa inuu COVID-19 uusan ahayn kaftan, uu yahay xaqiiqo oo aan ku waynayno dadkii aan jeclayn, walaalaheen, waalidkeen iyo ehelkeen. waxaan ogaanaynaa inaanan mar walbo aanan awoodi karin oo aanan xamili karin qofka markuu xaalad daran oo adag uu imaado in lagula tacaalo isbitaalka. sidaas awgeed waxaa habboon mar walba in la raaco tilmaamaha, laga dhabeeyo fariimaha oo ay dadku kala fogaadaan, nadaafadda lagu dadaalo maadaama wax la awoodo inta la caafimaad qabo ay tahay. cudurku waa safmar waana halis. waa virus si xoog leh u tarma, sanbabkaaga saameynaya kuna diidaya awood aad ku neefsato inaa weyso. marka isbitaalka lagu keeno ood oxygen u baahan tahay in mar walba uu kugu xirnaado, ICU aad gasho, ventilator inuu kugu xirnaado u baahan tahay, xaaladaada markaas waxay tahay 50-50 ah. marka aad ay u adag tahay. wadamo badan oo Soomaaliya ka xoog badan, ka itaal badan, ka dhaqaale badan ayaa maareyn waayay oo kumanaan kun uga dhinteen. waxaa habboon in dadka waayeelka ah da'da ah la ilaaliyo, aan la contact gareynin. waxaa habboon sidoo kale dadka xanuunada kala qaba in aad looga taxadaro. qodobka kale waxa waaye isbitaalka Martini wuxuu bixiyaa adeeg caafimaad. waxaa jooga dhakhaatiir Soomaaliyeed oo kala duwan. waxaa habboon inaan bukaan kasto oo xaalad daran ah isbitaalka lagu soo damgareynin oo la keenin. dadka dhimashada isbitaalka imaado waxaa ka mid ah dad wadnaha istaagay oo isbitaalka kala soo direen. waxaa ka mid ah dad xanuuno la kala la il daran. annagu waxaan qaadanay moral obligation inaan qof walba qaabilno, tirada isbitaalka ku dhimatay iyo xaqiiqadeeda bulshada la wadaagno. laakiin waxaan aad u dareemaynaa inuu culays nooga imaanayo isbitaalada iyo magaalada maadaama isbitaallo badan la xiray, covid dartiis loo xiray oo adeeg tertiary iyo secondary care bixinayay ay adeegi joojiyeen. sidoo kale dadku ay xaalad kasta oo u eg COVID-19 kana xanuunkan COVID-19 ay isbitaalka u soo dirayaan. waxaan ka codsanaynaa isbitaalada guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay inay bukaanadooda qaabilaan, daryeelkii adeeg bixinta ay u baahan yihiin u fidiyaan. qofka ay ku maareyn waayaan ama kaga shakiyeen COVID-19 ay soo diraan. waxaa morally ama akhlaaqda dhaafsiisan in qof kooma ku jira oo u baahan daryeel mukasafa gaari la soo saaro, naftiisa riski la geliyo, la keeno xaalad end stage oo aan waxba looga qaban karin isbitaalka. waxaan ka codsanaynaa dadka criticalka ah isbitaaladooda jooga in lagu maareeyo oo isbitaal kastoo isticmaalo oraahda Soomaaliyeed ee madaxaaga meerax ku xiro ee bukaankaaga daryeelo. annagana waxaan awoodno adeeg bixin ah aan ku sameeyno waayadana waan uga faa'iideysan lahaa fursadan. guud ahaan isbitaalka isbitaal Banaadir oo la diyaarinayo ee isbitaallo kale oo ay dawladdu go'aansatay inay u bedesho COVID-19 waxay diyaar u yihiin in ay bukaanka u adeegaan. Soomaaliya heerka dhimashada aad bay u sareysaa, xaqiiqo jirta waaye. waxaana u sabab ah nidaamka iyo systemka caafimaadkeena oo la ogyahay inuu liito iyo dadka iyaga oo aad uga madax adeegay inay wacyigelinta iyo ka hortagga qaataan. number ahaan waxaan la midnahay ama u dhownahay wadamo badan oo horumaray. sidoo kale waxaa yar dadka awoodda baarista. waxaan aaminsanahay in uu cudurku aad ugu jiro dalka oo dhan, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aysan gaarin awoodeena in ruux walbo ama guri walba la baaro. sidaas darteed marka waxaa kaliya habboon qofku inuu
nadaafadiisa ku dadaalo maaskigaas uu mar walba xirnaado gacmaha uu iska dhaqo oo measurementska loogu talagalay in cudurka lagu badbaado laguna jari karo lagu yareeyo aad u mahadsantiin